isku soo noqod wacan graphic design marka joogno sida horey u soo sheegnay in badan wuxuu leeyahay rules la tixgelinayo sida ay u kala sareeyaan in loo kala hormariyo muuqaalkan waxa kaga hadli doonaa ama ku qaadaa dhigi doonaa qodobka afraad ee design principle kaas oo ah balance. muuqaalkan gudihiisa waxa ku wadaagi doonaa tusaalayaal la arki karo. balance waa habka oo uu muuqanayo designkaaga guud. waxa balance uu isticmaali karnaa in uu xasilooni aan u yeelno designkeena oo uusan noqon wax hayacda. designka marka la joogo waxaa la isku dayaa sidii loo soo jeedin lahaa dareenka dadka si loo gaaro ahdaafta laga leeyahay designka oo ah in uu gudbiyo fariinta. waxaa jiro 3 nooc oo balance ah waxayna kala yihiin symmetric balance, asymmetric balance, radial balance. haddaad fahanto 3dan balance waxaa kuu suuragalayo in aad garato ama aad doorato balancega kugu habboon markaad isticmaalayso designka. tusaalahan ila eeg waxaa haysanaa symmetric balance. haddaba symmetric balance waa mid isla eg labadiisa dhinac sidii miraayad oo kale. dhinaca kale waxa yaalo iyo dhinaca kale waxa yaalo way isla eg yihiin, midba mid kale waxba ma dheero. mar kastaba waa wax isku miisaaban marka dhinac kasta ka eegno, ha ahaado textiga, shapeska iyo sawirada la isticmaalay. tusaalaha xiga waa asymmetric balance. asymmetric balance si fudud waa cagsiga symmetric balance. oo haddaa eegto tusaalahan waxaa kuu muuqanayo wax aan isla sinnayn labada dhinac. qayb ka mid ah ay badan tahay, qaybta kalena ay yar tahay. symmetric balance waa ka dynamicsan yahay markii loo eego asymmetric balance. macnaha markaa leeyahay dynamic waxaa ka wadaa yani aragti ahaan markii la dhaho, qurux ahaan markii la dhaho, symbol ahaan markii la dhaho, symmetric markasto qurux badan oo wanaagsan. asymmetric waa wax aan balance ahayn oo labada dhinac isla sinnayn oo xoogaa yani indhaha markii la fiiriyo hal dhinac u kala badanayso. waxa uu diiradda qofka ku hagaa fariinta la gudbinayo markaa isticmaalaysid symmetric. tusaalaha xiga waxaa dhihi karnaa radial balance. waa in dhexda la isugu geeyo qaybaha ugu muhiimsan xogta si dhexda loo arko. marka ugu horeysaba ama libiqsiga koowaad ee aragtidaada waxaa fududaanayso in aad aragto ama diiradda aad saarto qaybta dhexda ah ama centerka. qaybtan waxaa dhihinaa marka oo noo muuqata deertaan radial balance ayaa dhihi karnaa. intaas waxaa kaga gudbaynaa waa 3da qayb ee uu kala baxo balance. waxay ku xiran tahay isticmaalkaaga iyo ujeedada aad u isticmaalayso. markastaba oo si cilmiyeysan u adeegsato nashqadeynta waxaa soo saari doontaa waxyaabo lala dhaco oo ay indhaha jeclaystaan. bal isweydii naftaada, ma tixgelisaa balance? qaybtee ayaa ka isticmaashaa balance? ma wax wanaagsan baa mise wax xun in la isticmaalo balance? yani designka markaa joogna ka sheekeynayna. noogu reeb wixii fariin ah qaybta commentiga. mahadsanid. waa inoo cashirka xiga.